anigu macallin baan ahay culiyaanna waan ahay waalidku hadduu igu soo dadaalin maanta dadka gidaarada fadhiyan baan noqon lahaa maanta nin isku filan oo reerkiisa maamulayaan ahay reerle oo awlaad le oo haddana shaqaystaan ahay waqti yar haddii la siiyo dadkan wax way baran karaan waalid aan wax baranin wax uu ka bedeli karayaa taas laygu qosli ama waa layla yaabi maaha waqtigu waa technology uu isbedel waqtigu sidii hore maaha magacayga bare Jamaal Xuseen Aadan baa la yiraahdaa macallin waxaan ahay 20 sano ka soo shaqeeyay dugsiga Axmed Guray qaybta baahida gaar kale qaybta Noormaanka inta waan ka soo shaqeeyay marka baahida gaarka inta iskuulka laga furay si fiican buu socotaa waa la shaqeeyaa xafiiska waxbarashadu ala wixii qalaba uu ka soo caawiyaa wixii kale dugsiga dhexdeeda aan laga qaban karo aan ka qabanaa waxa ugu muhiimsan waalidka ilmaha dhalay iyo muhiim ah muhiimkaas waa maxay markaan kala hay muhiim markaan lahay waa ilmaha in xaafada laga soo saaro dadka baahida gaar kale waxbarasho loo furay indhaha dhagaha qaybta maskaxda intaas oo dhanba waa loo furay waxbarasho gaar ah loo qabtay oo fasal la gooni ay leeyihiin marka fasaladaas wax loogu dhigaa waalidka waxaan la dardaarmayaa in ay ilmaha baahida gaar kale maanta waa laygu qosli ama waa layla yaabi maaha waqtigu waa technology uu isbedel waqtigu sidii hore maaha waxbarashada waa loo bilaaway dadka ilmaha baahida gaar ka qaba marka anigu macallin baan ahay culiyaanna waan ahay waalidku hadduu igu soo dadaalin maanta dadka gidaarada fadhiyan baan noqon lahaa waalidkay baa igu dadaalay waxbarashadeedii gacan qabtay si fiican wax ii soo baray ka bacdina maanta nin isku filan oo reerkiisa maamulayaan ahay reerle oo awlaad le oo haddana shaqaystaan ahay cidna wajigiisa ma istaagayo almaha baahida gaar kale haddii la dadaali waayo waalidku la dadaali waayo ka soo saari waayo guryaha dabadeeda kuwa lagu qariyo kuwa guryaha dhexdeeda lagu hayo kuwa qufulo lagu qufulo waxa waa laga tagay hadda eegad waqtigu waa waqti isbedelay sidii jaahilnimada oo laga baxay ilmaha waxba la barayaa sidoo doonaya wax loo barayaa ilmaha isbedelay berri waxbarashadiisa inta ku soo baxo haddana oo isagu shaqaysan karo inuu yahay yaanu aragnay oonan dadkaas kamid aan ahay way jiraan arday markii hore special halkan fasalkan aan dhex taaganahay la keenay ka bacdina maanta 12 intay dhameysteen jaamacad ilaa heer jaamacadeed diyaar u ah way jiraan 12aadna ka baxay markii hore markii la keenay meeshan waxay ku ahaayeen dad waxbaan qabsanayn waxbana kala garanayn waxna kala saxayn baa ahayd markii dambe loo waday ilaa 2-3 sano markii lagu dadaalay ardaydii Noormaanka ka qayb galeen kuwa markay ka qayb galeen caadi waxbarashadii Noormaanka ay u qaateen ilaa 12aad kuwa fadhiistay sanadkii ka sii horeeyay fadhiistay baa jira marka qaar kuwa dhagahana ilaa heer kuwa macallimiina jira dhaga halkan dugsiga dhexdeedana way jiraan eega markii la keenay waxbana kama ahayn hadda fasalada intay galaan bay ardayda wax u dhigaan ardayda baahida gaar kale marka eeg waxa weeye qaar halkan jooga iyo wax sheega ama ardayda kale Noormaankan wareysanaa arday saas ma jirtaa xaafadiina wax ma lagu sheegaa arday saa iska fadhido oo xaafadaha iska dhax ciyaaraysa oo iskuul la keenin ma jiraan wareysi baan la sameeynaa marka media-ga iyagan badanka ku dardaarmaya anu inta ugu weyn waa media-ga maadaama TV-ga laga daawanayo habeenay dharar waqti loo siiyo programyada kale aad waqtiyo ugu qabateen ina loogu qabto oo dadka baahida gaar kale inta la duubto sida eegasa internet-ka laga soo dejisan karaa dadka ciyaaraya marka dambena isbedelaya waxyaalaha waqti yar haddii la siiyo dadkan wax way baran karaan waalid aan wax baranin wax uu ka bedeli karayaa taas marka media-ga iyagu waa inuu ciyaar weyn halka ka ciyaaro way garoonka inay galaan way ku xidhnow lana wadaaga asxaabtaada afaaladaadu waa muhiim Dagara Media waa saaxiibka dadweynaha